عقال وحجرد يوضا يالكسو تشيدا قبل كساحل أيا مانتا رالي قلين بوحدة كبيحيي لان يالكسو تشيدا قبل كساحل أو بربوريو وحيالو قيستيد اسميال لغا ديسايي حيبتا حيرو يا قلبيت كبربراء تاسو هالكاسي لغا وضي وتيل وينو عصري أو لي هايس نين لغو مقعابو سعد محمد قودن أو قربة شوغا odayaashan iyo waxgaradkan ayaa sheegay inay raali galin buuxda ka bixinayaan waxyeelada ay dhalinyaradaasi u geysteen dhismayaashii halkaasi laga waday sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha ka socday dhinaca mulkiilaha hoteelkaasi waxyeelada loo geystay oo iyaguna sheegay inay waxyeeladaasi loo geystay saamixeen isla markaana ay qaateen waxyeeladii halkaasi ka dhacday raalina ay sidaasi ku yihiin waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay jiif caaqil xasan shaqale maxamuud iyo jiif caaqil axmed caaqil yare arrinka aanu maanta iskugu nimi waa arrin ka dhexeeyay labada beelood tuulada xeero dhismo ku yaalo oo dib u geysteen inama ka mid ah inamada Ciise Muuse haddii aanu nahay labadan beelood maanta waxaanu si wada jir uga heshiinay arrinkii iyo qalalaasii halkaas ku dhex maray ay geysatay dhalinyar waxaanu xal iyo bootis ka bixinay waxa la wixii khaladaad ka yimid namadaas waxaanu qaadanay qasaarihii ay geysteen iyadoo reerkaas aanu tolka nahay isku deegaanka nahay isku ganacsiga nahayna ay saamixeen wixii qasaare meeshaas ay geysteen namadaas ka soo jeeda reerkayaga waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad booga mahadnaqaynaa gobonimada iyo kalsoonida ayna siiyeen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waliba waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa mulkiilaha hoteelka meesha laga dhisayo Sacad Maxamed Qowdhan aanu halkan u taaganay waxa weeye dhibaato ka dhacday dhis laga samaynayo tuulada xeero laga samaynayo halkaa dhis laga samaynayay oo dhalinyaro dhibaato u geysatay waxyeello u geysatay ayaanu isaga nimi haddaanu nahay dhibaatadii halkaa ka dhacday waanu qaadanay waana nalaga saamaxay waxaananu ugu mahadnaqaynaa Sacad Maxamed Qowdhan caas guriga ka dhisanayay shaqaaqadii ay u geysteen nimadii dhalinyarada ahaa waanu ka raali gelinay wixii malinkan maanta qasaare iyo arrinta cuqaashu jiifafku sheegeen wuu noo dhamaatay insha Allah ta'ala waxda mana dhici maayaan anigoo xildhibaan Ibrahim Dhaqcarmo kana wakiil ninka mulkiila aba markii naloo yimi boolajiis odayaashii iyo cuqaashii iyo xildhibaanadii iyo gudoomiyayaasha xaal iyo boolajiis noola yimaadeen waanu ka saamaxnay wixii kharash ee meeshaas khasaare la geystay waxaanu isla qaadanay sheekadaasuna halka ku soo afkado odayaasha iyo cuqaasha arrinkaasi wuu noo dhamaaday si wanaagsan maanu isugu afkaranay wixii halka ka dhacayna si wanaagsan bay noo dhameeyeen maxamed cabdilaahi soo fadhiiste Universal TV magaalada Berbera